والصلاة والسلام على رسول الله. تمام ذكر Soomaaliya meel kasta ku noolyihiin waxaan u jirayaa tacsi alla inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhammaanyaradii geesiyaasha ahaa oo shuhadada ahaa oo maanta iyagoo daafacaya dadkooda iyo hay'adaha qaran ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku geeriyooday ayaan tacsi u jirayaa ehelkoodii iyo dhammaan ciidamadii ay ka tirsanaayeen iyo ummadda Soomaaliyeed geesinimada uu muujiyey kabtan daahir maxamuud oo hor istaagay baabuurkii qarxayay waxay tilmaamaysaa deeganaanta iyo geesinimada iyo daacadnimada ciidamada ay qabaan sidoo xukuumi karo ayagana ku geeriyooda ayagoo dagaalamayo oo difaacaya baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaankeenaba xildhibaanada Soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta qaranka meesha ugu muhiimsan iyo daafacaya ku geeriyooday ayagana sidoo kale tacsi ayaan u jirayaa anigoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo magaca dowladda iyo magacaygaba waxaan leeyahay meesha ugu fiicneyd oo qof biniaadan iyo sawirta ugu fiicneyd oo qof biniaadan ku geeriyooday daacadnimada ciidamadeena qalabka sida guud ahaantooda ay dowladnimada Soomaaliya daacadnimada ayay tilmaan u tahay waxaan leeyahay dhammaan insan iimaan allah laga siiyo ayagana meel kale allah mariyo intaas kadib waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego shabaab olaakiisu mar walba waan garanayna iyo sida ay tahay iyo sida ay u doonayaan inay dowladnimadeena dantaalaan inay dadkeena niyadjebiyaan laakiin waxaan leeyahay dadkeena ma niyadjebi karaan dowladnimadeena ma dantaali karaan dacdadaas dhacday dowladda Soomaaliya waxbay ka baranaysaa iyo kuwii hore oo dhacay oo dhan waxbaan ka baranaynaa waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego kalsooni buuxda inay ku qabaan dowladooda iyo ciidamadooda intaba xilligan oo kale oo la dhigtan yahayna waa xilliga isku duubnaan iyo midnimo loo baahan yahay waa xilli aan oo cadowga kala faa'iidayso ummadda waxay ku kala qaybsami karaan inuu keeno ma kala qaybinna intaan leeyahay dhacdadii maanta dhacday iyo kuwii kasii horreeyay oo dhanba waxaa kaloo raacaa waa halkan inaan dadka Soomaaliyeed uga gudbiyo u sheego saacadaha soo socda haddii ilaahay yidhaahdo saacadaha soo socda isbeddel ayaa dhacaya isbeddelkaasoo dow ah oo kuwo kaloo badanna ay soo xili doonaan tallaabo cad ayaa mas-uuliyiinta dalku ay qaadi doonaan dowladdu ay qaadi doontaa isbeddeladaasi waa bilow kuwo kaloo badanna way ku soo xigaan waxaan u baahannahay waktigan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed intaba waxay u baahan yihiin midnimo isku duubnaan iyo kalsooni badan oo ay isku qabaan ayaga dhexdooda iyo ay ku qabaan hogaankooda siyaasadda oo ay ku qabaan ciidamadooda amniga ee qalabka sida intaas ayaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego caawa aniguna safarkii aan ku joogo South Africa waan soo gaadiyey maalinta isniintaa gelinka dambe inaan imaado yahay beri subaxdii arooriyada horaan soo baxayaa beri subaxda gelinka horeba waan joogaa magaalada Muqdisho haddii alla yiraa waxaanan leeyahay safarkii waxaan usoo gaadiyeyna arrimaha degdega iyo duruufahaas xildhibaanadii iyo ciidankii ku dhaawacmay meeshan haddii alla yidhaahdo dowladda Soomaaliya way u istaagaysaa caafimaadkooda iyo badbaadintooda caafimaadkooda dhaawac gaaray ee u baahan gurma degdegana waa loo samaynayaa wixii kalena allah caafiyaan leenahay intaasaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed gaarsiiyo waxaan leeyahay waan guulaysanaynaa si kama dambaysa weligaan u guulaysanaynaa dacdooyinka noocaan ee cadowgu ay wadaan mana niyad jebin karaan mana niyad jebin doonaan haddii alla yiraa ciidamadeena iyo dowladdeena iyo shacabka Soomaaliyeed oo isku duubanna shabaab ka guulaysanayaan wayna ka soo harayaan xaakinka iyo ciidda lagu xaaqaaye xaakinkaa dhammaado dhulkana wuu soo haraa dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda waa dhulkii shabaabna waa xaakin sii dhammaanayo waanay dhammaan doonaan haddii alla yidhaahdo dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa mar kale midnimo isku kalsoonaan dhexdooda ayaan ugu baaqayaa intii naga dhimatay mar kale samigii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu